السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad naga daawaysaan waxay dhigan media fadlan subscribe like share iyo comment جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا واستغفارنا وقراءتنا يا ربي يا رحمن يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. لا تردنا خائبين يا ربي يا رحمن. ولا لدي خالق. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويرعاكم ويحبكم إن شاء الله تعالى. إلهي رمضان كعافماتك إن بدا إيو سقنانت ونوغو بالله الله سبحانه وتعالى إنوغو دمايو بشن بركيسن رمضان كأ إن شاء الله تعالى. تنبيهات كين رمضان كسب سنة غار كميد أيام كوسو قد بنا يا ولالكي قالقه إن شاء الله تعالى. أرين مهمة ولن يرضى إدتك بإدوني إني أقدانا مهمة. مروا لبنا أي تهي سؤال هدتك كوسو الله لابتي رمضان كسب سنة مركا ugu horeeya horta ramadaan yuu waajib ku yahay. ramadaan wuxuu waajib ku yahay qof laga helo 5 shardi. qof laga helo 5 shuruudood ayuu ramadaan waajib ku yahay. waa qofka inuu yahay qof muslim ah, qofka waa inuu yahay qof baaliq ah oo qangaaray, qofka waa inuu yahay qof caaqil ah oo maskaxdiisa iimaankiisa ay joogaan, qofka waa inuu yahay qof saxiixa oo caafimaad qaba, qofka waa inuu yahay qof qiyaam ah oo jooga oo aan safar ku maqnayn. shanta qofka laga helo ayaa laga baahan yahay inuu ramadaanka soomo. فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي إله سبحانه وتعالى عليه قرآن قفك رمضان كوكسو قالوا حاضرة هصوم أي إليه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قفك حنوسا أما مسافر أهنا أيامك لا أيام لقول يهسوع لنا يا أسوق لنا يا آيات القرآن كي كحسن الله سبحانه وتعالى. مركا قفك رمضان كلا محاو أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون صحيحا، أن يكون حاضرا أو مقيم أو جوغا أو أن مسافر هين ayaa looga baahan yahay an yakuuna qof baaliqa inuu gaaro oo caqlina leh. 5 shardiya qofka looga baahan yahay inuu noqdo qofka ramadaanka laga rabo. salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiid uu soo warinaya Anas ibn Malik al-Kacbi ayaa wuxuu leeyahay qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha subxaanahu watacaala ina allaha caza wajalla alla subxaanahu watacaala wadaca cala almusaafiri shadru salaa. alla waa ka dejiyey salaada barkeeda qofka musaafirka ah. qofka musaafirka ah salaada barkeeda alla waa ka dejiyey. wawadaca can ilmusaafiri waalxaamili waalmurdici assawma aw asiyaam. qofkii musaafirka ahaa ama xaamilka ahay, uurka ahayd, dumarka ahayd, ama naaska nuujinaysayna alla subxaanahu watacaala soonka waa ka dejiyey ou leeyahy, ama siyaamka waa ka dejiyey. labada riwaayadood way soo arooreen, isma khilaafayaan in shaa allahu tacaala. wadac waa laga daayay ma aha, waa laga dejiyey oo rugsaa la siiyey oo permission baa la siiyey weeye. xadiidka micnihiisa wuxuu yahay ina allaha caza wajalla wadaca waa ka dejiyey can ilmusaafiri qofka musaafirka shadru salaadi barkeeda ayaa laga dejiyey. oo hadduu 4 ragcad dukan jiray duhur, qofka markuu musaafir noqdo 2 dukanayaa. hadduu qofka musaafir yaho 4 ragcad dukanaya markuu gurigiisa joogo, markuu musaafir yahay 2 ragcadood oo casar oo dukanaya iyo 2 ragcadood oo duhur dukanaya. qofka musaafirka saasaa u bannaan oo saasaa laga wadaa, shadru salaadka laga dejiyey saasaa laga wadaa. wa can ilmusaafiri qofka musaafirka iyo walxaamili qofka dumarka ee uurka la iyo warmurdici midda nuujinaysana iyagana wasawma aw siyaamka ayaa laga dejiyey. waa laga dhaafay oo waa laga wada bixiyey ma aha, permission waayo, permission fasaxa la siiyey oo waa laga dejiyey waayo. qofka musaafirka ah oo safar ku maqan soonka intuu iska daayo cuntadiis waa iska cuni karaa. kadib markuu salaada soonka uu safarkiisa gutana ayaamihii lagu lahaa ee qadada uu soo gudi karaa ayaa laga wadaa. qofka xaamilka ah ee dumarka ah ee uurka ah iyo qofka murdica ah ee nuujinaya, haddii ay gabadhu nafteeda u baqdo ama ilmihii ay nuujinayso u baqdo, way iska dayn kartaa soonka, laakiin qado ayaa lagu leeyahay say gudaysaa sida raajica ah ee culimmada jamhuurtana ay qabaan. khilaafyo way jirjiraan arrintaa ku saabsan, laakiin waa lagu leeyahay soonka sida raajica ah. wayna soo celinaysaa wixii qado kaga tagay ee xamli ah uur ah nuujina kaga tagay, way soo celinaysaa qofka dumarka in shaa allahu tacaala. qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha caza wajalla wadaca can ilmusaafir alla subxaanahu watacaala qofka musaafirka waa ka dejiyey shadru salaati salaada barkeeda waa ka dejiyey. oo salaadii rubaaciyada ahayd qofka markuu musaafir noqdo 2 ayuu dukanaya. wa can ilmusaafiri qofka musaafirka waxaa kaloo laga dejiyey walxaamili iyo qofka dumarkeeda xamliga lahayd ee uurka lahayd, walmurdici tii nuujinaysay asiyaam aw sawm
soonka ama waxaa laga dejiyay siyaamka hadba sida ay maaragtay raawi shaku raabi waa saami iyo siyaam labadaba uu qoray xadiidka marka waa lagu leeyahay oo waa laga dejiyay ruqsa la siiyay weeye waa laga dhaafa ma aha marka Allah subhanahu wa ta'ala aayadaha quraanka uu ku cadeeyay labadanba sidan aayada bilowgeeda ku soo sheegay laakiin dad waxaa jira ayaga aan soonka lagu lahayn qofka mariilka ah ee cudurka uu qabo aanan rajo laga qabin inuu ka soo laabto ama qofka waayeelka ah ee aanan xamili karin soonka sideeda banaanba dadka waa dadka fidyada laga doonaya weeye marka dadka fidyada laga doonayay ee soonka maalin walba laga rabay inay maaragta fidyada bixiyaan qofka waayeelka aan karin qofka cudur ama marad ama jiro qabo oo maalin walba daawo cunaya oo aanan isagana rajo laga qabin inuu maxaa la dhihi jiray uu soomi karo dadka fidya bixinayaan maalinka waxay bixinayaan 600 gram nus kiilo cunto ah iyo 100 gram nus kiilo cunto ah iyo 100 gram ay maalinka ka bixinayaan maalin walba fidyada bixinayaan sida asaxa ahana maalin walba way bixinayaan ma sii hormarinayaan oo ma qadimayaan 10 bari laba 30 bari ma sii qadimayaan sida caadiga ah laakiin maalin walba inay bixiyaan afdal ah maadaama cibaado maalin walba laga doonayo ay tahay maalin walba inay bixiyaan afdal ah marka dadka fidyada laga doonayo dadka waayeelada ah aan soomi karin oo soonka aan xamili karin dadka xanuunsan oo saqiimka ah oo daawo maalin walba cunaya ayagana waxa waay dadkaas ay ku jiraan oo fidyada looga baahan yahay marka insha Allah ta'ala tanbiihaadkaas ku baraarugsanow daraasaad kale oo isla ramadaanka ku saabsan insha Allah ta'ala maalin walba ku soo saabsan insha Allah ta'ala وان إذن سو قد بندونا إن شاء الله تعالى هذا الله سبحانه وتعالى حديث كان كوكو عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة الله واكد جي قفك مسافر كصلاة بركات وصلاة رباعية يقفك مركو مسافر نقضى وحد كان يلبلبو وعلى المسافر وعن المسافر وحكى له لقد جي قفك مسافر كسفر آية والحامل قبل حمل هيد أوركل هيدي والمرلع تين وجنيس لبضبا soomka ayaa ayagana laga daayay oo laga dajiyay oo rusqa la siiyay laakiin way soo celinayaan fa'iidatu min ayaamin ukhra way marka insha Allah ta'ala arinta iyada asaasan loogu baraarugsanaado kaliibkaagana insha Allah ta'ala walaalada kale la wadaag Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka garansiiyay shuruuda iyo arkaanta ramadaanka ku saabsan hadii Allah subhanahu wa ta'ala ku garansiiyay walaalo kale kaaga baahi badan baa laga yaabaa inay jiro insha Ar-Rahmaan u gudbi oo inshir garay insha Allah ta'ala midaan arinta ku bilaabayna qofka soonka laga rabo shanta shardiya laga rabo qofka waa inuu muslim ahaada qofka waa inuu baaliq ahaada qofka waa inuu caaqil ahaada qofka waa inuu saxiix ahaada qofka waa inuu ahaada qof qaa'im oo jooga ma sha Ar-Rahmaan إلهي درتي أيان كو جعلها الله يحفظك ويرعاك ويحبك إن شاء الله تعالى كليبك ولا لها كلا لو ذاك إن شاء الله تعالى حديثك ضد بدنك باك فايدي دونا عدة سونك الأولى هي يعد لقد جي يعد الرخصة التي يسوى ذاك ويحديثك إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى مايكروفون خيرك وشقي الله كادك إن شاء الله تعالى إلهي أكونتك آخر كبوحس إن شاء الله تعالى كليب كان عدل بوك وجرت في فيسبوك وقلي إن شاء الله تعالى قبة سون كيسة بتبادين يسأجر كيسة أنا لقيا بيناتش إن شاء الرحمن إن شاء الله تعالى علمي فربنا لقى فإذا استوي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نتن هذا دي بدنكم بسوا الله بنايو رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود